ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتي خالية وإذن سلامي والبوتنيدة كجوكتان سؤال يا إذن الله يا حي هديت هاي markii kugu horeysay oo muuqaalkayga ku soo gaaro waxa ka codsanayna channelka ay subscribe gareeso hadii hore noo joogteen waa ku mahadsantahay sida qiimaha qadarinta mudan ee mar walba muuqaalada halkan soo geliyo oo daawanisid wayna kaaga mahad celinaya walaal qaali oo qurux badan soo dhawo wayaan ku leeyahay hadii ay tahayna markii hadana sameeyo dulqad kugu saabin gaaro ama hadana satrigiyo bogayga kugu sidan waynayo socdo safar dheer kadibna soo dhaxmaray halka hadana sameeyo dulqad kugu saabin youtube-ka hadana satrigiyo bogayga kugu sidan marka waxa ka rajeynayaa waxaan rajeynayaa insha Allah inaa si qurux badan channelka ay subscribe gareey doonto si aad u socotid muuqaalada dambe ee halkan soo geliyo hadii ay tahayna oo hore subscribe ay ugu hednay waxa ka codsanayna laagto video galaaga ay saarto waayo daftarkaaga baa markii subscribe saarto ku iimaanaya marka waajibka ku saaran waxay tahay inaa noo laag gareeso videoga oo laagta iska saartid dislike-na waa iska caadi laakiin ha saarin dabcan ha saarin marka lagu dhaano ha saarin ana ku Soomaaliyeed anuu marka keep goonay leeyahay waana mahadsantiin walaaleyga qiimaha qadarinta mudan muuqaalkayga wuxuu ku saabsan yahay sida video gaba ah ku aragtay hordhiciisa waxay ahayd muuqaal yar oo ka turjumayo macna iska yar duubeena dad maxaa lahaa lagu soo koriyay kale koriskooda waxba kama sheegayo waxa soo korisay waa hooyo iyo aabbo hooyo apana kuma koriyaan ilmuhu inay dad dhibaatayaan ama dad afrikaatiyaan kaliya wax u koriyaan inay wax isku taraan ayakana anfacaan markii muhiim imahanina waalid wax ka sheego marka muuqaalka sida arkaysan waxay ahaayeen dayaxda nolosha iyo naagtiisa marwadiisa iyo qadarkeeyo oo isna kaligiisa sababta arkaysan waxay ahayd halka lagu camirtay dayaxda nolosha xaaskiisa si qurux badan loo soo dhaweeyay sida arkaysan qadarkeeyo labada muuqaal waxay kala turjumayaan inuu midna single yahay midna uu yahay marriage oo nin xaas la uu yahay qofka xaaska leh waxa lahaa ninka xaaska qaba dadku soo dhaweeyaan runtan la sheegaa waqtiga halka foodada waxa ka wadeen waxaan gabdho ku camirnaa dayax qatar oo iska dhigay dayax qatar iska dhigay iyo plan tiro badan halkaayeen halka qadarkeeyuna la soo dhaway sababta ay waxa rabaa aanu ku fogaanin ina wax yar idinta taabto oo kaftan iska yahay laakiin really maahan insha Allah sababtu waxay tahay qadarkeeyo loogu sabciyay xabash jooga waxa ahayn gabdho markii gaadi ku hayeen qadarkeeyo halka dayaxda noloshana loogu oriyay oo loogu camirtay uu yahay nin xaas qaba xaaskiisana gacanta ka watay ala siris kaftan waay hadii ay soo laabto muuqaalka fikirkayga oo yar ayaa ka dhiiban rabaa muhiim ma aha inaanay adiga isku fikir noqono muhiimna ma aha inaanay adiga isfahano dabcan oo macnaha hal meel ah ka wada jeesano laakiin waxa muhiim ah inay dhageysatid iyo inaad ku dhageysto anina ku dhageysto waa muhiim oo commentidina akhri waa muhiim adigana inaad dhageysatid sidoo kale waa muhiim marka waa mahadsantihiin fikirkuna qof walba fikir ayuu leeyahay qof walbana waxba si ay ula muuqdaan ma jirto maanta laba qof oo wax isku si ugu muuqanayaan ama hal meel wada socda oo hal fikrad wada qaba adduunkan ma saarna xataa hadii isku hooyo abaatiin hada maanta waa kala fikir duwan tihiin isku fikir ma tihiin isku muuqif ma tihiin so waxa qalad aragtaa qof qalad marko marka miimaan aniga adiga daawanaya isku fikraano waa laga yaabaa boqolkiiba 20 qof ugu fikreen meeshan ku jirto 80 ka soo haran ay ugu fikreen dabcan marka ma santiin aniga sida muuqaalka u arkay waxay ahayd xaflad ka dhacday xalay maana habeen hore ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xafladan ayaa laga wacay fanaaniinta qadarkeeyo iyo dayaxda nolosha kullay xaflad markii laga wacayo waxa ku wacay dadka xafladda soo agaasimay ee mas'uulka ka ah markii dadkaas mas'uulka ay ku wacaan kuuna casuumanaya imaan karta laakiin ma ahan in ku wacdeen ama ku casuunteen dadka ka soo qayb galay ee arkaysan ee kuraasta ku fadhiyay marka muhiimadu horta waxa la
runsheeg waa cabsheega maqli jiray aniga maanta qaladka waxaa u arkaa qalad horta waxa dhacay waa qalad way qaldanaayeen ina maanta nin wiil walaalkiin ah oo Soomaaliyeed ina ku camirataan oo dhahdeen ways dhaqay iyo qatar iska dhigay ways qurxi haduu is qurxi naftiisa saas kale haduu is cadeey naftiisa saas kale maanta wuxuu walba u sameeyay asigi naftiisa iyo Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku xisaabtamaya ma ahan xisaab anaka noola dirsaday طبعا qof walba tiis ayaa dib ugu filan maanta qof walba tiis ayaa dib ugu filan baalinta aqro qof walba wuxuu geystay aan xisaabinaya ma ahan in hebel wuxuu geystay hal xisaabiyo ma dhigi kartid qofkaasna si Allah ay u taala wuxuu Allah ka galay dambigu galay iyo dambigu galay maanta waxa laga yaabaa inuu jannada ka horgalo qofkaas dabcan marka anigu qaladka meesha ka muuqday horta waa qalad qaladkaas haba dhacay waxa qaladka iska lahaa oo sabab u ahaa dadka xaflada soo qabqaabiyay mas'uulka ka ahaa dadkan isku wacay ayaa waxa la rabaa inay control u yeelaan Soomaali hadaan ahanan foodada hadii hal qof u bilaabo waa u camireenaa rumalas been waa u camireenaa dhagax hadii la tuuro waa ka daba turtameena waxa xasuustaa anoo yar waxa jirtay qofkii garanay meel caano lagu gado ayaa marka caanaha lagu gadi jiray gabar asxaabteeda kamid ahayd markaas isku sii saaheene waxa dhacday kaalay meeshan waa turyeynayna marka gabdhahan waxa gadanayaan amaamooyinka caanaha gadayaan kaal waa turyeynayna ay u dhahay kadib waa baxan anoo ka badan meel oo bacda ah oo dhar lagu gado ayaa u galnay kadib waa turyeynay halka aad turyeynayno waxa yaala jeeg ani aawatay jeegaga cadaanka waa kasi caanaha lagu shubto ani aawatay ayaa yiilay waa soo turtanay balse laakiin marka soo turtanay halkii dadkii way carreen laakiin waxa meesha ku jijabay waxa ahay jeeggeegii oo caanaha ku doonanayay oo meesha yiilay ayaa iga jijabay ma fahanteen marka hadii ay ogaan lahaa inuu dhibaato aniga soo gaarayso ma soo turtameenba marka qof foodada muhiimada ay u salaabto qof haduu foodo kiciyo Soomaalidan hana waa la wada kicinayna waa la wada qasina laakiin meesha maxaa ka imaan kara dhibaato nooc ah soo gaari karto misdeena waxaan ila qaldan maamulka oo waxa maamulay ama iska soo dabariday halkaas joogay tan kaleeto oo muhiim oo tan kaleeto oo jirtan waxay tahay dadka caytamaya ama video soo duway wiilna inay soo dhaweeyaan wiilna maanta aflaadeen qalad ayaa u arkaa balse laakiin Soomaalida inta badan inay ka taxadirtay fiican qofkii maanta casuumatid wacatid naas sharaf leh ku keensatid meesha sharaf leh uu kugu joogo way jiraan arasmo badan oo ka heesay qadad dayaxdal nuurshe arasmo badan arasmanka muqdisho waxa la aroos dayaxdal nuurshe joogin ma bajiriyaba aroosa jirin ayaa laga soo qaadaa arooska asiga uu joogin marka nin asaas ah oo magaalka soo kala kacsan yahay ina laba gabdhood ama saddex gabdhood iyo laba wiil oo foodo kicis iska waxay dhaheen loo qabto baahan ina la bubuushana maaha dad kale in dusha laga saaro maaha dabcan asxaabteeda qaaligeena waa masantiin muuqaalkaasna sidaas ayuu ahaa waxa uu saas u weyn ma ahayn wax yar oo gabdho iyo wiilal yariiriso markaas soo baxayaan oo foodada ku jin ah qofku foodada xilli wax la foodeynayo xilli seesko isla socda dabcan xilliga marka seeskoodii ku jiraan inay wax foodayaan wax qasaan daadooda ay ku jiraan marka yaa la yaabin waxaan soo hartay dadka wax casuumanayeen inay dadka ay casuuntaan si sharaf soo dhaweystaan dadka kale oo maanayeen si akhlaaq leh ay meesha u fariistaan waa boqol maanta arkasan nin badan iscadeen isdhaqeen gabdhaha xataa foodad wax foodeynayo turtamay way isdhaqanay naftirkooda iscadeen marka tan dayaxdan nuurshe bisa u muuqato tooda muuqatay rara muqta tiina mani muuqatay adinku iscadeysin waa isdhaqaan maalol bakraan iska dawadin marka dayaxa dambi leh adig dambi ma no maanta oo wada sameyntina Allah subhanahu wa ta'ala majto maqaarkaada la qaaday gabar ahay wiil ahay toona dambi kulliyo gabar ahay ma jirto wiil ahay dambi kumali ma jirto qof walba dambigiisa waxa xisaabinaya Allah subhanahu wa ta'ala adduunka ina kaastay ayaa xisaabinaya laba malaayeen gurbiga saar dabcan marka adiga markii la xisaabinayeen lagu muwacay markii la xisaabin doonan ma jirtid marka ciyaartan laga daayay Soomaali Maxamedey iyo buubuliska tirada badan waana maasantiin walaalahay qaaliga ah sida muuqaalkiga u daawanaysan oo idinka mahad celinaya markoodi mar labaad iyo mar saddexaad waana maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh walaashii deeqa inta muuqaalka xiga kulmi doon waxa idinka tagay sida si nabad galyo fi amaan illah